maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo ay weheliyaan xogayaha dawladda hoose iyo maayir ku-xigeenka magaaladaasi Gabiley ayaa si wada jir ah ugu wareejiyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Gabiley isgaarsiinta ay isticmaalaan ciidamada nabadgelyada oo ay si weyn ugu baahnaayeen halka waxa lagu wareejiyay taliyaha qaybta gobolka ee booliiska waqtiyada ay isticmaalaan ciidanka boolisku oo isgaarsiin ahaan runtii ay ugu isticmaalaan oo sidaan ka warqabno aad iyo aad howlgallada iyo howlaha ay ciidanka boolisku hayaan lafdhabar u ah iyadoo booliska iyo maamulka gobolka ee nabadgelyadu ay si dhow ugu wada shaqeeyaan una la socdaan xaaladaha runtii joogtada ah iyo howlgallada ay boolisku sameynayaan waxaan filayaa waa markii labaad ama saddexaad baan filayaa runtii waxyaalaha aanu sida joogtada uga shaqeynaa bay kamid tahay ciidanka booliska oo iyagana howlaha muhiimka ah ee nabadgelyada khuseeya gobolka ay runtii ku qabtaan marka taliye nagala wareeg insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay idin fudaydin doonaan howlaha muhiimka ah ee 24 saac gobolka ka haysan iyo degmada aad iyo aad baa mahadsantii ugu dambeyntii waxa uga mahad celiyay taliyaha qaybta gobolka Gabiley waxana hadaladiisii kamid ahaa la'aantood waxba ma soconayaan qaar buu imka naga bedelo kuwa aan bedelayo yaa dawladda hoose keentay kuwana dawladda hoose keentay oo markii aanu sheegnay markii baahidii uu ka jawaabay oo ka saako nagu wareejiyay kulay gacmona wada jir wax ku qabtaan dawladda hoose Gabiley wala dhowrta ciidanka booliiska xaqiiqada marka loogu tago iyada la'aanteed waxba ciidamada ay qabateen oo hawsha ka socda Gabiley inta badan iyada gacanta u weyn nagu sii soo leh baas waa 13 mid uu soo iibiyay lacagtoodii hadda bixinaya oo uu ku wareejinaya qoladii waday basbaasiyo iyo sarkaalka la socday aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa dadkiisa iyo dalkiisa loogu qabanaya waana ku mahadsan yahay waayo dadkuna kuma wada baraarugsana waayo qof waliya garashadiisa weeyii anigu waa gobolkii ugu horeeyay ee soo iibiyay intaan gobol soo maray maayirkii horeeyay soo iibiyay biliiska ku wareejiyay weeyii qofkana wuxuu qabtay in la sheegaa muhiima oo la sheego oo la qarinin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hawlaha aanu biliisku gobolka ka hayaan lafdhawr bay u yihiin waan ugu mahad celinaynaa wassalaamu calaykum waa Cabsalaan Maxamed Bade Bulsha TV